مريحان مركي نبر إذن كل عو وهذا حوجا إسبوستان إن الدنيا وعبادان مركي اللي انتهينه أتصير عيالك وهذا شان أنا وهذا الكات كوه الله يسان تاسان إذن كلا يهاي وأنا إسنقان شلي بان وده تشوجني درهات بان وده تشوجني ما أنت وده تشوجنه دلعت قبل كرتان يدلعت كرتان من مره مريحان وحب برا يسكو قرين عد والله وبالله وطلع عندنا هالشيء سينا هالشينه والعقل غير كل هالشينه وندك كلا عشانه والمسلمين هذا أنسلك نروح نقولنا ما هي شكرا على كلامك وكلا أنتوا هلا يوفينا كعسة وولقي فينا كعسها وينا عليك ورميدو ما له هلا أنت تصهر من الإنسان إنك رفع حجاسه وضلده هلا أنا وإحنا بدي ماشي سكال عيد دولة ده قال مدوك أيوة كتر سنة دريس لو أكو هالك هرا لي الله ولا جور قاميت كوده وتصور كلا جور قاضي نحن دريس كوجل يهدو شعبي هاي وسود دولة هاين نحن أوجل يهدو سنة هاين قال مدوك هدو سنة هاين دولة الصومالية نحن دريس كوسو قل شيء ورانا نقول مع وسبان وضنا يا شهر ولا أوجي هاي واحد دريس اللي يهدو عن وضناه ما يتكاي الوارك ماي بنت يبقتك يبورس كوكالنتا شوشية شكرا على الكورونا كان كعيش هذا كان ليه نبضينا ربنا وبورس كوكارين وكرتيرو وعدكودي وإسدلية عدكودي يجا إسدلية شلا يجا نبدأ ديدي ما أنت نمركي وير سوق هذين وحلا غيب صدق وحلا وذاقي أي هذنا عبادية وربل إسدجيست مري حان هذين كيافكين إسدجيست نبكي ماشى كدعي وحا سبب أوله أو سمية أورميدك waxaa sabab u leh reer faarax ugaas waxaa sabab u leh reer diini weerarka ayaga keenay annagu balan bala la qabsanaya dhul baa la qabsanaya nala ka qabsanaya hadal caruureed weey war balamal meesha waa ku ognaa annagoo wax ku leh oo kala barka badan lahaan ognaa inuu meesha ku yaalo dhalashadaydu inuu habar gidar weey mar dhow oo hadda laga joogo adiga 13 bilood hal sano iyo wax waliya مريحان وحو ضلعي دادكي شعبك هايو ساسها إنو كو ويرارو بابور تكنيكا أو الشيكي يالي إتوبيا إنو وطاقو إنو كولايو كو مركا كوباد حير قولف بيكاب بلابين حبض لا إنو تبقى قروينا كل انتي والغا ورقباه مركي لباد واسوع عليين لان دلد ميلي يراهدو بليدي جودا وقود حيساي قالين وحا كل انتي دار بلويلكو أدياركا واها واسوع عليين waxaa ku dhintay shilan bay galeen waxaa ku dhintay mid aan waan dhalay hadlaya waa celiyeen ka xandaalay galeen waxay ku laayeen dagaal baa ka dhacay faraha looga gubtay dad badan waa ku leeday way soo celiyeen waa soo wareejiyeen haddana waxay tageen haraale annaga Ethiopian baan hadda ka hor baan loo yimid dawladda kaliya shanaad oo jigjigood baan noo timid waxay yiraahdeen isma dhaqa iyo haraale midna laba day karo dhul daaqsimeed weey xoolaha daaqay waa meel saas xooluhu ay inay daaqaan markii horeba loogu tala galay waa meel labada reer u dhaxayso oo aan wax badan hadda meeshaasi aysan deegaankeedu aad u ballaarayn Soomaa garwadaale iyo kan kale sheegayaan leeyahay ciidan buu la wataa iyo ayagaan ka maqalaa dad qabiilo hadlana waxa la rabaa hadalkay ku hadlaan argagixisa wax weyn weeye inay meel saaraan iyaga laga doonayaa dawladda Soomaaliya xagga ka jirta midka Itoobiya xagga ka jirta ciidamadii baa ku dhex jira wax qarsoon male maal cad weey hadii shabaab meesha ku jiro oo miina keenay oo argagixisa anagu aan keenay oo dagaalka haraala ka galeen oo samanada ay sheegayaan iyo hubka ay sheegayaan miirooyinka ay keeneen oo ay cadaato damiga anaga iska leh laakiin hadaysan jirin oo ciidanku ka warqabo galmudug ka warqabtay inaysan joogin oo ciidamadu ka warqabaan oo kilka sharan looga warqabo inaan halkaas garwadaale iyo shabaab midna ka dirirayn hadalkaas waa hadal iyaga la jira shaqulna kuma lihin waxaan ka hadlayaa oo kale ciidamada ay leeyihiin waa ciidamadii galmudug saraakiishoodii baa leeyahay saraakiishoodii baa dhex ku meeyday ay ka hadlayaan ciidamo galmudug oo halkaan dagaal ka gashay oo saraakiishoodii ku leeyahay oo dhex lagu duugay ama meeshii lagu duugay marixaan baa afkeeda wax ku haynaa inay soo cadeeyaan iyadan waa laga rabaa waxaan anagu ognahay maahan dadkii shacabka ahaayoo dantu waday oo xoolaha doonka watay oo abaartu haysay oo geediga habay dhishike ku bilaabeen faarax dhoombe ninka la yiraahdo aniga hadlaya way iga daawanaya 70 sano jira
soddon iyo kow sano ku leynahayay habar gidir bahalka la oran jiray beebe ku leynayay markii beebihii uu waayana saaka dhishiiku u soo qaata ninka maallow dadka ku leynaya meesha shacabka ugu yimid asagoo ah waxa la rabaa Mariixaan waa qabiil waan hadlayaa hadalkiisa asaga inuu boos u yeelo xagga ciidamada iyo xagga shabaabka iyo argagixisada iyo miinooyinka ayagay agtaala Mariixaan shalay inuu afku hadlo saakan afku hadlana ma fiicna shalay waa diiday nabadda in la dirirayo sidii caruurteena looma hadlay sidii qabiilnimo ama dad aqal loo hadlaa haddii nabad la diido dadku waa islaynaya ninkii guusha alla abaarsiyan hal arko semberi baa dadku dhimanaya shalay hadday meydkooda ka tageen oo ay maalintii ka horreysay ka tageen oo ay intaas hadda ka tageen dhanka kalena wax furin qabo ma degayo sidoo kale dadku ugu dhimanaya sidoo kale dadku ugu la'anaya Mariixaan hadduu dad muslimada uu sheegaya sax tahay oo Soomaalinimada uu sheegaya ay sax tahay waxa laga rabaa nabad inay keenaan inay joojiyaan waxa ay wadaan dal baan nala ka haysaa war dadkan dad xoolo daaqsataa weeye baraaga Mariixaan ma degana jiingadan Mariixaan ma degana shirwa cali kolanka hadda hadlaya daraad markii uu lahaa ariga cawska daaqaya calooshu ila xanuunaysa in la dhagacalee ninkii istaagayo ah ma faqaraa isugu nimid ari daaqaya cawska oo 10 habeen markii la joogo cawskii meeshii laga waayay ninkii nabadda u diiday buu ah saakan wuxuu ka dhaxlay wiilashiisa oo dhaawacay inuu daad gureeyo kuwa adeerka u ah kuwa kale adeerka oo dhimashadooda inuu daad gureeyo oo uu ka dhaxal hadda waxaan leeyahay Mariixaan waa la dhimanayaa shalana waa la dhintay daraadna waa la dhimanaya birina waa la dhimanayaa nabadda ha laga shaqeeyo u soo diyaar garooba ciidankii nacshada dadkii shacabka ahna waa dilayaan aqaladii bay gubayaan gabdhii bay naasaha ka garaacayaan oo ka ulanayaan war gabdhuhu dadkay ka dhaxeeyaan waa warshad Ilaahayna siiyay hadday daarood yihiin iyo hadday yihiin intaba waa dad laga dhaxeeyo weeye looma baahna xabad qalad gabadha ugu tagtay mooyee mid kasta in lagu dhifto looma baahna aqalada in la gubo way naga dhaxeeyaan waxaad yeelaysaan waxaan leenahay annagu waxaan Allah idin tuso idooro madaxweynana aqalka waa gubaya dhulka waa sheeganaya waxaan leeyahay cawska daaqameys ana iska lahan leeyahay waxa Soomaaliyeena waa idinku arkaysaa wax la idin ogol yahay ma wax idin hirgeliyana maahan markii nabar idinku dhaco oo aad xoogaa isbuustaan inaad adduunka u cabaadaan markii aad leedantihiin aad sidii ciyaalkii u hadashaan ma fiicna anigu hadalka aad ku hadlaysaan taasaan idin kale yahay waan isnaqaan shalay baan wada joognay daraad baan wada joognay maantaan wada joognaa dal aad qaban kartaan iyo dad aad dadka ka kici kartaan midna ma leh xagga Itoobiya anagu waxaanu nahay kilka shanaad baan ka tirsanay dad Itoobiyaan aanu cagjar madaxweynaha kilka shanaad waa cagjar waxay og yihiin ciidanka New Police oo kilka shanaad dhibaatada meesha ka jirta waa ka warqabaan Mariixaan maalin walba inuu dhishikaana la dhex fariistay sikaawaha og yihiin maalintii xayir guruf dadku ku laayeen qasharadii ba arusheen waa qaadeen war aqliga Mariixaan keena kareediin keena ugaasiyada keena suldaamada keena anaguna waa keenaynaa fidna ka ciskaan maalin walba ka nool meeshana cishada waryaada waxaana la ku soo weeraray tigniko waxaana la ku soo weeraray dabaabaad waxaana la ku soo weeraray askari qabiil u soo fakaday oo muxuu ahaayay ka soo dagaal tagay balanbal Soomaaliya garan oo dawladda Soomaaliyana ay ku tirinayso inuu ciidan yahay qabiilkiisuna oo maaragtay ficil ahaan ugu soo tagay way ku dhinteen garaadahoodii baa la masawiray magacyadoodii baa la masawiray qadka umba adduunku ka arki doona taas waa midda xogta ah oo dagaalka dhacay ah fariintan Mariixaan u dirahayaa waxay tahay dad islaam ahaan nahay haraalaan joognaa weerar ma ihin inaan islaamka nabadgelinaan diyaar u nahay inaan nabadgeliyo ka shaqeynaan diyaar u nahay haddii ayna soo weeraraan hadde meel ma fadhinayno dhibka meesha ka dhacay waxa sabab u leh awsami iyo urmidig waxa sabab u leh reer faaraxugaas waxa sabab u leh reer diini weerarka ayaga keenay dalka ma inaan qabsan baraaka ma inaan qabsan gurigoodii ma inaan tagin waa guryahanagii iyo maxastanadii waxa ay tiknikada ku weerareen ninka hore loo sheegay oo faarax dhoomba ah oo barigi dawladda Maxamed Siyaad Barre ay maaragtay burburtay oo ay dhacday muxuu ahay dadka ku weerari jiray tiknika ayaa misna saakay fursad u soo dilaacday oo shacabka in uu laayo misna ay u soo baxday ilaa waqtigii xabadaas bilaada 12 bilood ayaa xabadaas socotay ugaaskooda og
dawladda Itoobiya waxay ku xirxirtay in la kala ma qaato oo maslaxad la kala qaato dawladda Itoobiya oo noo gar qaybiinaysa waxay ku xirxirtay shilaabo waa laga soo gudb markii ugaaskooda uu soo furay oo uu soo badbaadsay oo uu ku soo qowl qaaday inuu magti ka qaadayo habar gidir iyo ayaga reer ayaan iyo ayagana uu xisaabsiinayo ama habar gidir iyo ayaga uu xisaabsiinayo ayaa waxa ku diiday Mariixaan reer diini ma diiday qaasahan reer warsama diiday qaasahan reer Faarax warsama diiday qaasahan nimanka Bahay Ibraahim la yiraahdo diiday Soomaydna garan isla marhaantiba duulaan bay soo qaadeen waxay soo weerareen xayir gulf annaguna waa kuleen ayaguna way kuleedeen waxay soo weerareen dhurwaayaale way nugu laayeen waxay soo weerareen balidhiig way nugu laayeen inta tignikay wateen guriyihii balidhiig ayay gubeen guriyihii balidhiig bay ay gubeen oo ay ku gubeen muxuu ahaayay ayagoo tignika wata waxaan doonaynaa dawladda Itoobiya annagu dal Itoobiyana waxaan nahay shacabka Itoobiya dawladda meesha ay nugu laayeen qashirkii ay wateen annaguna aynaan wadin waxaan geynay laba baar waxaan geynay shilaabo waxaan geynay qabridaar intaasaan qashirkii annagoo codsi ah oo dawladda Itoobiya markinayna hubka nal ku laynayo oo balanbal iyo caabuduq ay kala imaanayaan ayaa nal ku laayay hadda iyo dan ninkii al-shabaab sheegay asaga laga rabaa ninkii al-shabaab sheegay asaga laga rabaa haddii dawladdu jirtana oo garaad muxuu ahaayay dariis u jirana kiisii baa masawiran in dawladda Itoobiya ay ogaataan rabnaa dawladda Galmudug inay ogaataan rabnaa meenada ay sheegahayaan oo ay sheegahayaan de ayaga sheegay ha keeneen war walaalayaal waxaan fariin waan ugu dirahayaa nimanka Mariixaan inay ka xishoodaan aakhiradooda oo ay ka xishoodaan marastooda oo ay ka xishoodaan saqiirkooda oo ay ka xishoodaan dhaqamiyadooda birmugooydadii aan birugoyn oo dhaqanka Soomaaliya ahayd way ka salaaman naqsadeen waxyaalo aan loo baahnayn oo gaaladu xataa ka xun tahay bay samaynayaan waxaan leeyahay walaalana Ilaahay ha u laabteen dhaqamiyadoodan ha u laabteen hana ka sheexan waxyaalaha xun oo ay samaynayaan shaahidana islaamka noqonayo Mariixaan waxay ku soo duuleen habar gidir degan qaasatan qoyska reer Ayaanle iyo qoys kale oo la socda ayay ku soo weerareen Soonaha Haraale shanta dagaal oo teknikada nagu soo weerareen shanta ayaga weerar ma jirto weerar annaga habar gidir waan geysanay ma jirto dhibaato annagu aan banaysanay haddana dunuub kale ayaga gelahayo barabagaanday sheegayaan oo aakhiradoodii bay haddana ay barabagaanday been ku sheegayaan